gudoomiyaha gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi ayaa wuxuu ka hadlay markii ugu horeysay safar ku tagay dalka dibadiisa oo muddooyinkii ugu dambeeyay uu socdaal ku marayay qaar ka mid ah wadamada qaaradda Yurub. Gudoomiyaha gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi walaalaye ayaa isagoo arrimahaas ka hadlay waxa uu yiri waxaan ku tagnay dalka Sweden runtii safarka waxaan la qaatay oo soo martay qaaday xafiiska wakiilka Jamhuuriyadda Soomaaliland u fadhiya dalka Sweden oo martiqaad nooga helay gobol ka mid ah gobolada dalka Sweden gobolka Västmanland gobolka Brasselkiisa martiqaadkaas kulankii horeeyay waxaan la yeelanay sida aad saxaafadda ka arkaysan runtii Brasselka gobolkaasi Västmanland oo caasimadiisu tahay magaalada Västerås gabadha laga Mrs Barbara waxaan ka wada hadalay runtii sidii loo wanaajin lahaa ama isbarasho ay u dhaxmari lahayd ama loogu mataaneyn lahaa labada gobol gobolka Västmanland iyo gobolka Togdheer ee Jamhuuriyadda Soomaaliland loona bilaabi lahaa xiriir saaxiibtinimo oo dhaxmara labada gobol runtiina ay iska kaashadaan dhinacyada caafimaadka iyo waxbarashada iyo waxyaabaha la midka ah runtii kulankaygaas wuxuu u dhacay si aad iyo aad maartay runtii u heer sareysa markaa shirkii baarlamaanka ka qayb galay runtii shirka waxa lagu xusay ama afhayeenka baarlamaanka gobolkaasi uu ka sheegay inay maartay goobjoog yihiin oo ay joogaan wafdi delegation ka socda Jamhuuriyadda Soomaaliland oo kala qayb galay shirka runtii waxaan dhageysanay runtii macluumaad badanna maartay aan ka qaadanay qaabka ay u dhacayaan doodahooda iyo qaabka loo soo bandhigay runtii wax weyn oo ah sumcad ahaan iyo sharaf ahaan iyo maartay iyo karaam ahaanba Jamhuuriyadda Soomaaliland inta uu tagay arrintaas ahayd sidoo kale waxaan aragnay jaaliyada reer Soomaaliland runtii ku dhaqan dalka Sweden runtii waxaan si gaar ah u aragnay jaaliyada gobolka Togdheer oo aan kala hadalay inay ka qayb qaataan horumarka ka socda gobolka Togdheer dadkaas oo aan halkan jecelahay inaan uga mariyo maartay hambalyo aan uga mariyo inaan mahadnaq uga mariyo sidii wanaagsanayd ee ay noogu soo dhaweeyeen dalkaasi aan ugu tagnay siday loo dhageysteen iyo runtii siday uga muuqatay dadkaasi inay yihiin dad aad iyo aad u daneynaya in ay ka qayb qaataan horumarka maartay gobolka. Cabdirasaaq Koronto, telefishinka caalamiga ee SAB magaalada Burco.